dalkan Kenya dhacdo dad badan ka yaabisa ayaa ka dhacda kadib markii nin isagoo la aasay oo inuu dhinto loo malaynayay isagoo aaskiisa qabanqaabadiisa lagu jiro soo noolaada. Axmed Badar ayaa sheekadaas soo aqriyay. Bal Axmed, sheekada nooga waran. sheekadan Faadumo waxay ka dhacday deegaanka Embu lagu magacaabo ee dalka Kenya. wiilkani ninkani lagu magacaabo Stephen Kiptoo ayaa waxa uu isagu markaasi uu dhalay wiil, waxayna asaga iyo eheladiisiiba ay sheegeen marka hore in wiilkaasi uu dhintay isla markaana ay aasayaan. waalidka dhalay oo markaasi Stephen lagu magacaabo ayaa u sheegay warbaahinta The Standard ee dalkani Kenya in waalidkood uu xusuusiyad markaasi xanuunsaday, in wiilkooda uu xanuunsaday ka hor kadibna markii uu naqaska ku dhagay ay isbitaal u qaadeen. isbitaalkaasi ay geeyeen. markii isbitaalkii ay geeyeen waxba waa lagu qaban waayey. kadib waxaa loo soo qaaday isbitaalka weyn ee magaalada Embu, halkaasi oo la dhigay. waxa uu sheegay aabahani wiilka isagu dhalay in wiilkani sariir ka mid isbitaalka la seexiyey, balse ay ka tageen habeenkii oo isbitaalka uu ku jiray. aabaha wiilka bukaanka dhalay Faadumo oo lagu magacaabo Stephen Kiptoo ayaa waxa uu isagu markaasi markii uu gaaray sariirtii uu jibso wixii markuu soo laabtay oo sariirtii wiilkiisa uga tagay uu yimid, ayaa waxa uu markaasi u tagay wiilkiisii oo aan meeshii jiifin. markii uu raadiyey ayaa waxa ay sheegeen uu yiri dadka meesha agtiisa jiifay sariiraha in wiilkiisa uu dhintay isla markaana halkani laga saaray. kadib muusan sii hubsan markaas kadib waxaan maleeyay ayuu yiri inuu ku jiro goobta meedka markaasi la dhigo. waxaana markaasi aan aaday u dhahay xaafadaasi oo aan u sheegay in wiilku dhintay. dhammaan daraska isu yimaadeen, waa qabanqaabinay. lacag $500 oo aaski ayaa markaasi la aruuriyey oo dadkii laga ururiyey, balse mid ka mid ah ehelada wiilkaasi ayaa isbitaalka aaday si lacagtii isbitaalka u soo bixiyo. waxa uu tagay goobta isbitaalka ahayd, wuxuu u tagay goobta dadka lagu soo dhaweeyo, halkaasi u sheegeen magaca dadka dhintay laga baaro, balse laga waayey, lana ogaaday markii dambe inuu nool yahay.